boqorkii ugu awoodda badnaa dunida ayaa maalin istaagay isaga oo eegaya ciidamadiisa waaweyn. Cutubyo dad ah iyo jinniyo iyo shimbiro ah, dhammaantoodna si buuxda ugu hoggaansan amarka hogaamiyaha sare, Nabi Suleymaan calayhi salaam. Bal sawiro muuqaalkaas, qof walba meeshiisa ayuu joogaa, nidaam iyo kala dambeyn buuxana way muuqataa. Markaas ayuu maqlay quraanjo yar oo leh, "Quraanjoyow, gala guryihiina si uusan Nabi Suleymaan iyo ciidankiisa idin burburin." Iyaga oo aan dareensanayn, Nabi Suleymaan wuu dhoola caddeeyay hadalkeeda cajiibka ah oo Ilaahay maqal siiyey. Wuxuu la yaabay hadalka quraanjada iyo sida wanaagsan ee ayaga iyo ciidankiisa uga fikiraysay. Waxaa laga yaabaa xilligaas inuu dib u milicsado nimcooyinka uu ku dhex jiray. Boqortooyo dunida ugu sareysa ayaa gacantiisa la geliyay, wax walbana waa loo sakhiray. Laakiin intaas oo dhan kadib, wuxuu Rabbigiis ka baryay wax ka weyn boqortooyada iyo awoodda, isaga oo yidhi, "Iga dhig naxariistaada addoommada suuban dhexdooda." Sidoo kale Nabi Yuusuf calayhi salaam, qadarka Alle wuxuu mariyay marxalado adag: jaceylkii aabihii, ceelkii lagu riday, qasrigii boqortooyada, xabsigii, ugu dambeyn xukunkii Masar. Markii Alle dib ula mideeyay aabihii iyo qoyskiisa isaga oo ah wasiirka Masar, wuxuu Rabbigiis kula hadlay qalbi mahadnaq leh, asigoo dhahay, "I oofso anigoo Muslim ah, iguna dar kuwa suuban sida walaalkiis Suleymaan oo kale." Kuwaasi waa daqiiqadaha ugu daahirsan ee qofku arko xaqiiqda nolosha. Wuxuu fahmaa in dunidu tahay wax sii dhammaanaya, xitaa haddii uu gaaro heerka ugu sarreeya ee awood iyo maal. Markaas ayuu qalbigiisu ku dhawaaqaa, "Iga dhig addoommada suuban." Sida Nabi Ibraahim oo yiri, "Rabbiyow, i sii xikmad, iguna dar kuwa suuban ee la jecel yahay addoommadaada." In lagu daro kuwa suuban waa rajada mu'minka, waa rajada qofka baqaya in mowjadaha nolosha ka leexiyaan jidka badbaadada. Waa baryada qalbi leh, "Quluubta rogrogow, qalbigayga ku sug diintaada." Mu'minku wuxuu isku arkaa musaafir keligiis socda habeen mugdi ah. Dunidu waa mugdi, fitno iyo jahawareer ku hareeraysan. Laakiin wuxuu Alle ka baryayaa inuu tuso xidigaha hanuunka si uu u raaco waddadii kuwii guulaystay, addoommada Alle ee suuban. Ilaahay waa gargaarahayga, waana kan daryeela kuwa suuban. Macnaha ayaa ah, qofkii Alle la jiro, Alle ayaa garab istaaga. Sunnada Alle waxay tahay inuu daryeelo kuwa wanaagsan, uguna dambeyn guusha siiyo iyaga. Mu'minku wuxuu hamiyaa inuu noqdo kuwa Alle daryeelo. Kadib wuxuu akhriyay ballanta Rabbigii, kuwa rumeeyay oo camal suuban sameeyay waxaan gelin doonaa kuwa suuban dhexdooda. Markaas ayuu fahmaa waxa looga baahan yahay: inuu qalbigiisa hagaajiyo, inuu camalkiisa hagaajiyo, inuu saaxiibadiisa iyo dhaqankiisa hagaajiyo, inuu noloshiisa oo dhan ku buuxiyo wanaag iyo toosin. Rajadiisa waa inuu ku dhammaado khayr, hamigiisuna waa inuu noqdo addoommada Alle ee suuban. Ilaah subxaanahu wa tacaala hanagu daro addoommada wanaagsan, hanaga dhigo. Waxaan u baahannahay inaynu dadaalno
nafteena iyo shaydaanna aan la dagaalanno, Ilaah subxaanahu wa tacaala aan kaalmo weydiisano si nolosheena dhinac walba ay u hagaagto. Nafteena kaliya naguma filno, kuma kalsoonaan karno. Waxaan u baahannahay inaan Allah subxaanahu wa tacaala mar walba baryano, aan ducadeena ku darno, inaan mar walba Ilaah qalbigeena diinta ku sugo, inaynu mar walba Ilaah subxaanahu wa tacaala kaalmo weydiisano, inuu nagu caawiyo inaynu xaqa ku taagnaano, inay nolosheena hagaagto. Waana qof walba oo muslim ah waxa uu rajeynayo inuu noloshiisa hagaagdo aakhiro iyo adduunba. Adiguse hamigaaga ugu weyn waa maxay?